السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa laga yaabaa inaad yaabtay markaad aragtay ciwaanka sababtoo ah hore inooga mad baran mowduucan oo kale. Haddaba mowduucan wuxuu xidhiidh fiican la leeyahay mowduucii kii ka horreeyay kaasoo ka hadlayay tahriibka iyo dhalinyarada dhibta soo martay. Haddaba maanta waxaanu isla eegaynaa cilmiga iqtisaadiga islaamiga yacni ganacsiga iyo waxbeeridda wax soo saaridda muslimka dhexdiisa inagu ka hadli bayno cid kale laakiin inaga ayaa isla faguraynaa oo waxayna isla eegaynaa. haddaba ganacsiga muslimka dhexdiisa ama se gaar ahaanba ummadda afka Soomaaliya ku hadasha sidoo ku yahay saysa ula dhaqmaan saysa wax u samaystaan ama wax u beertaan mase ka fikirtay sababta in wax u qabsan weynay ilaa waqtiga aynu u fadhino aynu gacan bilaadan wax uga sugayno mase maqashay hadallo fara badan oo Soomaalida inta wax magaratada ay tiraahdo sida dalka nimcaan fadhida cuntooyin baynu haysanaa far badan iyo wax noocaas ah. haddaba waa run dalkeena nimcaan fadhida laakiin haddii laga faa'iideysan waayo aakhirka cid kale baa cunaysa. haddaba arriga Soomaalida waxa lagu sheegaa arriga ugu wanaagsan Afrikaba sababta wax beeridda jawiga iyo si kasta uu ku wanaagsan yahay. haddaba maxay tahay inaga wax kasta qabsan karna in haddana wax kasta inoo soo dheefiyo. haddaba ma waxayna qabsan kareen baa inoo soo dheefiya mise waxaynu qabsan karno meel labadaba iyadoo waliba aan leeno egin tayadiisa aan leeyahay soo hagaajin oo aan la soo farsamayn ee leeyahay soo cambusayo leeyahay soo qaadayo wax kasto la arkaba. haddaba minaga kaalinteennii gabnay si adduunka isbedelay oo wax kala siiya bal hadda adigu su'aasha isku day maxay tahay adag wax qabsan karaya haddana in wixii lagu keeno laga iibiyo bal hadda halka inaga hubso. haddaba anigu waxaan shaahido ahaa ama joogay nin soo saari jiray beerta cuntooyinka kala duwan ayaa waxa arkay cunto lagu keenayo bilaash wadamada gaalada oo bilaash lagu qaadanayo tiisina ciidba ka hoos qaadi weeday ilaa waa bahal uu iibinayay. haddaba ninka waxa la nacsiiyay inuu wax beerto oo wax soo saarto isagoo waliba dalkiisii jooga. haddaba mirir kasta waxaanu maqlaynaa war dalka shaqo ma taalo war qabyaalad baa jirta war kanoo kidhiish waxaan leeyahay haddaba waxaas ma jiraan inaga shaqadiina gablay oo teeni qabsan weynay markii isu nix weynay anagu horso eeg weynayna shisheeyuhu uu ka dhanaansanaya bal haddaba aynu islaagno xagga beeraha iyo wax soo saarkooda waynu ognahay in Soomaaliya qura intaas oo beerood laga samaysan karo iyo intaas oo geedo kala duwan. markaynu iskaba dhaafno waxyaabaha ikhtiraacadka ama technology-ga iyo waxyaabaha cusub adduunka hadda keenay bal dhirteena qura iyo waxyaabaha qura yaala dhulkeena bal inta qura inoo qiimee haddii u jeesino waxaynu samaysan kari lahayn badu maleynaysaa. waayo dalna ka dhigi maayo ama qof kale ka dhigi maayo inaad wax qabsato ama dal horumar la yeelato laakiin adigu baa iska dhigi kara. bariyahan dib waxaan arkaynay hebel han ictiraafo ama ingiriisan ictiraafiyo dalal kale war qofku ictiraafi maayo ilaa adigu is ictiraafto aad dhaqaale yeelato meel ka soo baxda mooyaane. waliba ka sidaran waa gaal iyo muslim waxa hore loo yiri gaalku raali ku noqon maayo ilaa diinta raacda mooyaane. xitaa inagu hadeena waxba beeranayna waxba qabsanayn kuwa indhali doono inaynu u sii gogol xadho oo aynu wax cunaan u sii sameeyno miyaan waajib naga saarnayn. waayo taariikhda way isqoraysaa waa bariyaysaa dambe mana badna. haddaba aynu isla eegno bal shan wax oo yaala dalkeena Soomaaliyeed kuwaas oo aynu ka faa'iideysan karno laakiin si aynu dayacnay. kow beerida dhulka sida noocyada kala duwan. laba macdanta dhulka laga qodo taas waa muhiim iyadu macdantu waxay qaybsantaa laba mid dhulka hoos taala iyo mid noqdo lagu hawshoodo. haddaba macdanta laba oo qaybi beerahana saddex qaybood oo qaybi shanta qaybood ayna ugu filan gabigeeniba oo waliba inaga badan haddii la inoo eego intaynu Itoobiya u doonayno cuntada iyo muuska waxyaabaha ay soonaysa ka soo qaadanayno kaliya inagoo dalkeena u jeesanay inaga badan. waayo bal matala qiyaas saddex qof baa iskaashato noqonaya iskaashato hadda halka muraadax ku arkaysa iskaashato saddex qof baa iskaashanaya mid keenaya qalabkii beerta midna dhulkii midna lacag buu keenaya waxaanay samaysanayaan lix shaqaale beerta uga shaqeeya iyaguna ilaa mulkiilayaal way iska fadhiisanayaan. hadda halka maxaa ku shaqaaloobay waa 9 qof halka wax ku shaqaaloobay shaqo ku helay 9 qof. haddaba aynu islaagin xaggan iyo macdanta waa laba qaybood san hore ugu qaybinayba labadaba waan dayacnay maanta gaala goranaysa inta dhulkeena inay soo daba marto ay hay'adii xanagu maratay si raashin bay maanta wada goranayaan. war waxaan odhan lahaa siba si dhaanteey waxyaabaha aynu qabsan karnay inaan cidna u dirsan ajaanib iyo qof kale toonayna u dirsan aynu inagu qabsano sababtoo ah maxaa la yiri mahmaah Soomaaliyeed waxay ahayd nin bur haystay nin biyo haystaa oo isu baahan inaga maanta isu baahan yahay cidna yanaan ku dayacin hawsheena
waayo dowladdii inagu waynu u simannahay. Wassalaamu calaykum.